masaajidkii isagoo nebigu jooga nin dhallinyaraa nebiga u yimid oo gacanta taagay su-aasha weydiinayaa la dhegta loo taagay yarkii su-aal cajiib uu soo saaro wuxuu yidhi yaa rasuulallah anu zine ma dayn kariya zinada halay ogolaada buu yidhi saxaabadu way yaabeen saasay u eegeen maxaa tidhi markaa buu nebigu yidhi daaya soo dhowow walaal ma kula dhasheen gabdho walaala ahaa way la dhasheen habaryar ma leedahay haa edo ma leedahay haa caynkaa ma leedahay haa raalli ma ka tahay kuwa aad qaraabada tihiin ee ehelkaaga in waxaa loola tago oo nin meesha joogo waxa ku sameeyo may dhimashaan ka aqaanaa buu yidhi wuxuu yidhi zina ii fasax baad igu tidhi haddaan zinada kuu fasaxaba ka soo qaad gabadha aad zinada ula tegaysid ragga halkaa fadhiyo unbay ama walaashii tahay oo walaal ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay ama eddo ugu toosan tahay ama inantiisii ayay taho uu dhalo aabbo ugu toosan yahay sida adiguba kuwaaga aad waxaa raalli aad ugala ahayn ayakuna kuwooda raalli kalama abuu ku yidhi markaa buu yaa rasuul allah ilaahay dambi dhaafii weydii markaa buu nebigu soo dhowow ka yidhi laabta halkaa buu nebigu gacanta u saaray wuxuu yidhi ilaahu farjigiisana fuxshigaa ilaahu ka dhowr dembigiisana ilaahu ka dhaaf qalbigiisana xumaanta ilaahu ka saar buu yidhi bal fiirso طبيب الأمة معلن لمده أدوك ما سومر من سومر دونه وقاعد محمد عليه الصلاة والسلام معلن عجيب أبوها يركي يرى وحيد مالين تبا يقدم بيسي حمان أنكو هميوها مالين تنبي يقول لابته وقعنت إيسارة يقدم بيسي بيولي مساجد كدحدي سنن عربية عورتي سيتون الله صوبع يكون كاذيي صحابة يكون يعين كجوج أبو نبي يقول هل بكون كاتسين بيه كبدا قاضي كشبا سجين يقول يقول كاذي ذا هكو كلا جوينين أبو نبي يقول دعوه فرح كقاضي يقول هل بكون كاتسين بيه كبدا كشبا سجين أبو يري لماذا بنيت المساجد مساجد وحي الله دسيب النبي يقول شيء نكي حولي والله معلن لمده ورو ما أركن دب دمنا وما أركن يقول يمد بسن يمعاين وحنا يقول مدفن إله أني محمد نون حريص عد كلنا هنولنا حريصا بيقولي بركاب النبي يقول رحمة إلهي واسعة هاي أي اللي بدنا كسو كوبته كدر أصحاب تيدنا النبي يقول ودعاء دعاء كدر إياكنا marka usluub dadka loo islaaxinayo ee ummadda toobada iyo ilaahay xaqiisa loogu xidhaayo waxay ka qaateen darsiga Muhammad alayhi salatu wasalaam rasuulkeennii bay ka qaateen alayhi salatu wasalaam Umar al-Faruq radiyallahu anhu ayaa waxa jiray nin rasaa'isha risaaladaha uga keenay maaragtaan ardu Sham Umar ninkii buu waayay booskiisii nin kala yimiday markaasuu Umar ku yidhi war ninkii hebel ahaa ee risaaladaha ii keeni jireen xiriirin jiray yaa amiir almu'miniin ninkii waxa la u simbiri raxda lagu yidhi diintii uu ka noqday shaarib al-khamr buu noqday dhulku ku dhacay markaasuu Umar kacay uu fadhiistay markay raggii noqonayeen buu la dardaarmo wuxuu ku yidhi horta ninkaa waad u tegaysaan oo salaam baad iga gaarsiinaysaan warqadna waa niigu dhiibi risaalada u geeyay buu yidhi intaanad u teginna duca ilaahay barya buu qalbigiisa ilaahay inuu soo jeediyo في سورة غافر أيو كشاقي ابن كثير رحمه الله أوائل كيغا سورة آياتها وقهر شرحي أيو كشاقي آيات دنو مركا عمر وقر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر الذنب وقابل التوب ذنبك يا دف توبتنا يا أقبل
warqadii bay ka qaadeen cumar sidii cumar koo dardaarmay bay sameeyeen markay buuqanayeen ziyaaraynayeen way duceeyeen waa u duceeyeen mid baa duceeyo intoodiina aamiin bay yidhaahdeen ninkii bay halkiisii ugu tageen ay ku yidhaahdeen madiinat almunawara ka soconnaa cumar baan ka soconnaa xaggiisa haye uuna kaa weydiiyey ma cumar ba aniga ay tabay haa uu ku tabay cumar haye warqadana uu nagu kaa soo dhiibay salaanna waan kaaga sidnaa warqaddaan akhriso warqaddii buu kala furay غافر الذنب وقابل التوب غافر الذنب وقابل التوب للمين يا لماذا كسعتها للما كدادنا يسنكي وصو إسلامي إسلامي ما دي سوي حقاقتي أما أو توبت كانوا توبت دي سوي حقاقتي بريد بي جماعة عمر كسو نغطي عمر وحكى لما ويدينا وحيري نكيب اللي يقوى الرمى بكويري وعلى يا أمير المؤمنين سيدي آت سمايا نقول تريبا سمايني ورقدي وانو قادني سلام بانو قيني انت انو تقينا وان دعاي سني لو قلبك سيلحي سوجي ديو يا أمير المؤمنين نبشرك نكي وصار نغضى إلهي بوصار نغضى وطوبت كاني مركز عمر كويري صحابة دا مركز أرتان نن مسلمة أو سنبرير حدي أو إلهي طاعت دي سي عبادتي كدعي مركز أركتان أرصدا أولا نغمة بكوري صدا أولا نغمة إنك أنا درينك الله ينسي dad badan oo maanta muslimiin iska dayacan laakiin cid u damqata markay waayeen cid toobada ugu yeedha markay waayeen cid masaajida ugu yeedha markay waayeen cid u oyda habeenkii markay waayeen cid u naxariisata markay waayeen ayakana qaarkood way qoosteen bashar al-hafi bashar bin al-harith al-hafi nikal oo jiray min aimati salaf buu harag ummadan hogaamiyaashii wuxuu ahaa lagu dayanayay buu ka mid noqday markii dambe saalixiinta aqalkiisa waxa lagu ciyaari jiray baa la yidhi dafka iyo maaragtaane rakhaska lagu ciyaari jiray oo rag iyo dumarka isku dhex ikhtilaadi jiray nin maalqabeena ayuu ahaa habeenada ka mid a nin garcad oo cimaamadana u duubanta albaabka aqalkiisa isa soo taagay ninkii bawaabka ahaa ee albaabka u joogay buu ku yidhi ninka aqalkan iska leh ma addoon baa mise waa sayid ma nin xoraba بس هو نين أضونا برجع أضوما جرجروا ولا يمسجر أضومها ما وقته مركب أبو كوري سقوا حقوقه مركب إنه لا يعني كان وانين عين كاسو أضونا أو ما يعني مركب ما هو حر مركب هو حر ما ها أضونا هو حر سندوش السروق أركيا ها محربة ها وواحد أقل كيس سيد الله يقول عيارة إلا سبب تأقل كيس الله يقول عيارة وحر بس هو يقرأ عليها وسكتة معنى نكن يسقوا حوجي هذو أضون إلهي وياهي أقل قيسة حمان تلقوا مصمع ييني وانين لحربان هاي سوماها حربان هاي تاسو يسقوا مركا وجيدي دوشو كارك وصور أدعي بواب كيب ويمد النكي واش مانك البابك وجوغي أو أضيق الدقي وتغي محاد كتير محو كايري لبدا سؤالات بيويديو كوري نكا أقل قيسة سلقوا عياريو وحربان سواء أضون ده محاد كت جوابتي مركز ده وحان يا سيدي سيد ويا نكن وانا الحر مركز والله حر ما يهيبوا الضون بانا هيبوا الضون عقاق بوكا قصور على عقل كيس دوش سري الباب كجيد كايو تاغن يسقوا عقاقا وكتب دقاقين نكي عقل كيس كومسون نقوم بلدي عقاقي وعقاقنا اي الله قم مقعدر بشر الحافي بشر كي عقاقنا مساجد كو قلي فتاب توبة نصوحا حلقات العلم يجيبوا كحرمي علماء الربانيين تيبوا الله فريستي تارة في الذكر وتارة في التلاوة وتارة في العلم وتارة في العلم الحديث مركز دموه نغضي ولي من أولياء الله بنغضي بشر بن الحارث الحافي قال المعلمها كمذا يسقنا وحو صومري ملقى الشنة أيو أركي لفظا اسم الجلالة الله warqaday ku qoran tahay oo meel qashina dhex taala buu arkay oo ka soo qaaday lacag yar oo diraahim yar uu sitay u lahaa magaalada tago cunto kaga soo gado maadaama uu yahay talib ilmi uu gaajoonaya ayuu yiri magaci ilaahay buu arkay qashin dhex yaala oo ka soo qaaday lacagtii intuu la tagay dukaanka cadar laha ayuu cadar intuu ku soo iibiyay qiimo badan oo qaaliya ayuu warqadii magaca ilaahay ku qornaa buu ku shubay cadarkii udgoon buu ka dhigay udug markaas miskiidka meel fiican buu ka dhigay warqadii
gaajana uu ku seexday habeenkii waa warqad habeenkii markuu seexdaa manaam lagu yidhi sidaad magacayga u udgoonaysiisay ayaan adigana magacaaga kor u qadnaa ilahay ilaa qiyaamaha warqad magacii ilaahay ku qorna ayuu dhaafi waayey uu lacagtii uu raashinka uu lahaa ku gadatiidna uu u huray uu ku soo udgoonayo cadar ugu soo gaday imisa dad muslimiina oo islaamnimada ku dhalatay oo qulubtooda ay ku qoran tahay laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah oo si walba gaaladu ay yeeleen inay gaaleeyaan oo la gaalayn waayey ayaa dayacan maanta ayaase ka soo dhex qaaday u fikiraya intaynan masaajidka soo gashay camiraysa intii khayrka jeclayd baan nahay inaku raaqibiintii baan nahay khayrka jeclayd ee culammada ku xidhnayd laakiin inta aanan maanta khayrka jeclayn ee maqaaxiyaha fadhida ama meelaha fisqiga lagu sameeyo ku sugan ama qaflaysan ayaa boqolkii 80 iyo kay naga badan maanta nicmada hadday haystaanna ilaahay ugu shukrini maayaan way kufrinayaan balaayo haddii la soo daristana ilaahay u sabri maayaan oo sabri maayaane way quusanayaan cid markaa waxaa loo baahan yahay dadka maanta gacanta soo qabata islaam baa wax u badan ilmo yaroo keliya lahayd laakiin ilmahaasi caqligu ka jiran yahay caqliga bal weliba hooyadii habeen u tumaa ilaa caqligu wax ka qabaaye markaas iga qabtay tiraahdaa dadna markaa majaarku u soo gurmadaana way ka qabataa baa layidhi waa laga qabtaa maalin maalmaha ka mida ilmihii sidaas ahaa ee dhibta iyada ku hayay ayaa ka lumoo ka hallaabay baa la yidhi hallowga waad fahmaysaa soo maha waa ka lumay de macnuhu markaas alla ilmahaygii way wiilkaygii dadkii baa ku yidhi maxaad ka raadinaysaa kan maxaad ka raadinaysaa uu ku dhibayo dhibna uu kugu haye iska daha kaa maqnaadee way macidaan isaga ahayn oo kalan leehay bay tihi bal fiirso sida hooyadaa ilmahayga ugu naxariisanayso ayuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ugu naxariis badnaa magaalada maka maalinkii markuu maro nebigu kuwan la hadlo faminhum man tafala calaa wajhihi wejigiisa qandhufta nebiga lagaga tufaayey wa minhum man sabahu qaar way aflagaadaynayeen nebigeena way caayayeen oo afkay ku taagayeen wa minhum man darabahu qaarkood way garaacayeen nebiga sal alla alay wasalam wa minhum man xaha turaaba calaa wajhihi qaar carada intay qaadaan bay nebiga ku sheedhinayeen oo maalinkii gabalku habeenka markuu dhacana wuxuu lahaa yaa rabbi ummatii yaa rabbi ummatii yaa jibriil u teg xabiibkayga moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tidhaahdaa innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasuu'uka yaa muxamed ummadaada annagaa kaa raalli gelini doona kuguna dhibi mayna baa ilaahay ku yidhi raalli waxaad raalli adigu aad ku noqotaan ummadaada u yeeli doonaa baa ilaahay yidhi wax adiga ku dhibana ummadaada ku samayni mayne isqabooji baa nebiga lagu yidhi markaasuu nebigu lahaa yaa jibriil ummatii yaa jibriil ummadayda ma lahayn inantaydii faatimo iyo zawjadaydii caaisha iyo zawjadaydii khadiijo iyo may ummatii inakana dareenkaadi allah inagu arsaaqo xil baa diinta inaga saaran halkii nebi maxamed sal alla alay slam inakaa ku jirna booskiisii maanta booskii nebiga ayaa ku jira waa inuu qof kastoo muslima u yidhaahdaa booskii nebiga anaa ummadda ugu jira maanta uuna dardaarmay nebigeennu xajat alwidaac wuxuu hi ani nebi igama dambeeyo inagana ummad inagama dambayse ka shaahidka xaadirka ka maqan gaadhsiiye saasee markaa diintan inagu soo gaadhay insha allah dhahada inakuna inaan halkaa dadaalka diinta ka sii wadno oo haddii laynaga dalba diinta inaan waktigeena ku bixino insha allah dhahda soo diyaar ma nihin insha allah soo diyaar garooba insha allah allahna inagu anfaco saad noo soo dhaweyseenna dee allah ininkana idin soo dhaweeyo masaajidkuna waa masaajidkeennii ininkuna dadkaygii iyo ehelkaygun baad noo tihiin waan soo buuqanay kulankii baan kasoo qayb galnay ijtimaaca si fiican buu u dhacay
runtii dee waa mantiqadeennan ubaa ijtimacay maanta adduunyada ka dhacan ogaada jabuuti iyo hargeysa iyo muqdisho iyo nairobi dadkeenan afkeenan soomaaliga ku hadla ee mantiqadan ku nool wax weyn baa ilaahay nala doonay maanta wax weyn baa ilaahay na siiyey saxwada iyo dhaqdhaqaaqa iyo kulanka iyo culummada iyo masaajida iyo madaarista iyo macaahidda iyo culummada meel walba si hore diinta ilaahay u sheegaysa manbacii qur-aanku ku soo degay manbacul waxyi xorriyadda maanta aan ku haysano wallahi kuma haysano wallahi kuma haystaan culimmadii mamlakadu maanta marka innakana nicmadda allah inoo ilaaliyo iyakana amniga allah u soo celiyo xorriyaddii diintoodana iyakana allah u soo celiyo amni iimaankana allah inoo ziyaadiyo diintii daacadda allah inoo macaaneeyo dad badanoo walaalaheena ducadoone qaar xanuunsan yihiine nin walba halku ka bukana caafimaad sariica allah ka siiyo qof walba halku kurbaysan kurbada allah ka qaado qof walba muraadkiisa oo macsalahna gacanta midig allah ka siiyo amni iimaankana allah inoo ziyaadiyo dadka wadankan islaamka aan ahayn ee gaaladana waa dad dabacsan oo jilicsan iyakana ilaahay hidaayadda allah u faysalayo ilaahay qulubtooda ha soo jeediyo kuwii sababtooda ummaddu ay ku hanuunaysan innakana allah inaga yeelo hada wabillahi tawfiiq wasala allahu calaa sayidina muxamed bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra